magacaygu waa Peter. tanina waxay ahayd sheekadii igu cabsida badneyd ee abidkay igu dhacdo. waxaan jiray xilligaas 12 sano. aabahayna waxa uu ahaa mid ka shaqeeya shaqooyinka la wareejiyo, taasoo micnaheedu yahay marba waxaan aadi jirnay meeshii aabahay shaqadiisa loo bedelo. maalin maalmaha ka mid ah, aniga iyo hooyaday oo guriga joogna waxaana loogu soo gargaraacay albaabka. cidda kaliya ee naga maqnayd oo filayn in lagu soo garaacan waxa uu ahaa aabahay. aniga ayaa ka albaabka ayaan furay, misana waxa albaabka soo garaacaysa waxay ahayd islaanda ah. waxayna igu tiri, hooyada ma joogtaa? gadaal ayaan fiir, waxaana ku dhahay hooyo waa lagu imaaday. labadoodii ayaana bilaabay inay wada sheekaystaan. waxaana maqlay ama sheekadooda ka dareemay inay islaantu tahay mid deriska ah. waxayna hooyaday ka dalbanaysay inay imaato xaflad ka dhexayso beer innaka inoo dhow. hooyadii aad ayay ugu faraxday, waayna ogolaatay. isla habeenkii markii la gaaray waxay u sheegtay aabahay, wuxuuna ogolaaday isagiina arrinkaas. aniga waxaan ahaa mid aanan jeclayn xafladaha. aad ayaan uga xumaaday maadaama xafladuhu ay yihiin kuwa dad waaweyn oo aysan ahayn kuwii carruurta. habeenkii dambe markii la gaaray ayaana baxnay, waxaana aadnay xafladdii. waxayna ahayd xafladda mid lagu qabanayay beer annaka inoo dhoweyd. waxaana ishelay waalidiinteeda iyo waalidiintii kaleeto ee meesha joogay. balse aniga waxaan iska katashalaato, waxaana iska fadhiistay meel gees ah. waxaan iska daawanayay kuwa muusikiin ah oo muusig garaacayay. waalidiinteedana waxay ahayn kuwa ay iskugu baxayso farxadda. waxaana meesha ka bilowday in bullero la rido, farxaddana ay bilaabato. balse wax yar kadib ayaan wax maqlay oohin qof meelaha ka ooyayo. geesa ayaan fiiriyey, isna waxba waan waayey, cidna ma aanan arkin. aad ayaan u yaabay, geesaha ayaan aad u fiiriyey. waxaana ugu dambayntii geeskiisa ku arkay hoos uu qof leeyahay. waxaana dareemay qofka meeshaas taagan inuu yahay qofka ooynaayo. waan yaabay, si fiican ayaan u fiiriyey. waxaana meesha ka soo baxay nin qabo face mask ama maaskiga lagu magacaabo kaloonka, kaasoo ka muuqato murugo. aniga waan yaabay, waxaana ku aqaan dadkan inay dhoola caddeeyaan, ractireeyaan, qosqoslaan. si fiican ayaan u fiiriyey. wuxuuna u muuqday qof aananba ahayn dadkaas kalluumayska xirto. waan la yaabay, waxuu la murugaysan yahay qofkan. wuxuuna bilaabay inuu aniga aad igu soo dhowaado, balse aniga meesheeda kama aanan dhaqaaqin. waxaana indhaha ku hayay isaga. waxaana la yaabaa sababta uu ninkaas zaa'idka igu soo fiirinayay ahaydka uuna igu mashquulsanaa. waxay ahayd xaalad kaleeto oo cabsi ah. waxaana markii dambe la riday buleerkii ayaana ku mashquulay oo aan fiirinayay. balse hal mar ayaan dhinaci kale soo fiiriyey, misna ninkii maba joogo. aad ayaan nooga yaabay arrinkaas. habeenkii markii aan seexday ayaan waxaan ku riyooday aad iga cabsiisay. waxaan ku riyooday aniga oo jooga beerta oo cidla ah, oo uusan cid joogin, oo aysan shaqarna ka yeeraynin. waxaana xilligaas maqlay qof oynayo sidii galabtii oo kale. markii aan geeska soo fiiriyey mise waxaan arkay ninkii wejiga cabsida watay. waxa uuna ahaa markaan mid isku dayaya inuu aniga ila hadlo. wuxuuna igu yidhi, waxaan u baahanahay inaan dhoola caddeeyo. adiga miiga dhoola caddaysiinaysaa? jeebkiisa ayuu gacanta geliyay, wuxuuna la soo baxay mindi. waxa uuna bilaabay inuu jaro afkiisa ama bisimihiisa si uu dhoola caddeeyo. wuxuuna afkiisa jiray ilaa dhegta. aniga waan ooyay, mise dhulka ayaan ku dhacay. waan soo booday, waxaana ogaaday inaan rajoonayay. aad ayaana u dhididay. naxdinteeda aad ay u badatay. waalidiinteedana oo iskuma aanan daynina u sheega arrinkaas. waxaana dib u galay iskuul. waxaana isku baranay gabar lagu magacaabo Saara. Saarana waxay ahayd gabadha kaliya ay i muujisan naxariis iyo inay si fiican ii dhegaysato aniga. waxaana dareemay inay tahay qofka keliya aan ku kalsoonaan karo. maalin maalmaha ka mid ah waxay bilowday inay iiga sheekeyso xaflad ay tagtay. markaas si fiican u dhegaystan waxaan dareemay xafladdaas inay tahay xafladdii aan habeenkii tagayay. waxaana ku dhahay xafladdaas aniga xitaa waan joogay, laakiin waxay ka qasay ninkii qabay wejiga face maskiga kaloonka ah. way la yaabtay, waxay u dhahday kaloon mask ah. haa, in dadka wejiga xirto oo dadka qoyska qoslisiiyo. ninkaas ayaa maalinkaas iga qasay. waxayna igu tiri aad u la yaaban, ma hubtaana midaas? haa ayaan ku dhahay, oo waan ku arkay habeenkaas. waxayna igu tiri aniga kuma aanan arkin. meeshaasna gebi ahaanba horta waaba ka mamnuuc qof face maskigaas qabo ama kaloon maskigaas qabo inuu soo galo. waxaana laga mamnuucay 2016 markii ay dhaceen balaayadii. waxaana weydiiyey maxaa dhacay 2016. waxayna igu tiri
waxaa xilligaas beertan iskugu imaada dad qaba wejigaas oo tiro badan waxayna ka cabsiyeen dadkii meesha joogay oo problem ayay kiciyeen waxaana meesha yimid booliis mid ka mid ah ayuuna xabad ku dhuftay oo waxayna dhahday dadku waxay aaminsan yihiin in ruuxaanta midkaas ay ka agdhowdahay beertaas agteeda waxaana xilligaas la soo gaaray ama loo soo dhawaaday gurigii Saara sidii ayna ku macsaleemeeyay waxaana wadada ku soo haray keligay waxaana ii dhinay 10 daqiiqo si aan u gaaro gurigayga waxaana iwaana yara degdegay si aan dhaqso guriga u gaaro markii aan xoogo socday ayaan dareemay cabsi aad u daran waxaana u soo dhawaaday xilligaas beertii habeenkii markaan beerta ag maray waan fiiriyay waxaan arkay in beertu tahay mid cidla cidna aysan joogin waxayna kadib ayaa meel geesa waxaan ka arkay qof si kidis ayaan ku fiiriyay misana waaba qofkii ama waaba ninkii wejiga cabsida lahaa ee clown maskii qabay waxaana arkay in wejigiisu gabi ahaanba daboolay dhiig afkiisuna uu yahay mid jeexan sidina uu u murugaysan yahay weli waan ka cabsaday waana ka yara degdegay si uusan ii soo gaarin ilaa aan ka dareemay sanqar ah inuu qofka ii soo dhawaanayo kaleeto haddii aan bagada la fiiriyay misana ninkii ayaaba soo ordayay isaga oo gacmihiisa kor u taagayo indhihiisuna ay ka da'ayaan ilin dhiig ah cabsidii ayaa igu ziyaaday waxaana go'aansaday inaan fakado oo aan ka cararo oo aan nafteeda la fakado aad ayaan u soo cararay anigoo qaylinayo oohinayo aad noo cabsanayo waan soo cararay ilaa aan soo gaaray gurigeennii xilligaas ayaan igu dambeysay miir hooyadii ayaan igu tiri albaabka ayaad soo gargaraacday waxaan arkay adigoo meesha ku suuxsan isbitaalka ayaana la geeyey isbitaalka markii la geeyey waxaan ahaa mid markasta ku qayliyaha ay dileen waxyaabo la mid ah hooyadiina umaba aanan sheegin arrinkaas oo waan ka qariyo waxaan ku dhahay keliya waan cabsaday markaas kadib waan ka soo guurnay magaaladii aabahayna waxa uu soo bedeshay shaqada magaalo kaleeto oo meeshaas dib dambe ugumaanan laabanin waxaana ka soo agdhowaanay awowayaashay waxaana markasta igu soo dhici jirtay amaad waxaas adiga keliya aad sawiranaysay oo aysan jirinba